bismillahi raxmaan raxiim waxaana wanaagsan meel kasta oo naga dhegaysanaysaan ama aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijyadii aynu ku baran jirnay arrimaha la xiriira xagga internetka waxyaabaha la xiriira sida youtube-ka iyo waxyaabahaasi oo kale horey waxaan idinkugu soo gudbinay barnaamij ku saabsanaa in youtube-ka laga samayn karo lacag markaasi ay noqoto in la raaco qaababka markii barnaamijkaasi aan internetka geliyey dad badan baa ila soo xiriiray dabcan dad badan baa hawa gashay marka waxay is yidhaahdeenba haddiiba fadhigaaga adoo gurigaaga jooga aad lacag samayn karto maxaaba isku dhibaysaa maad youtube samaysatid kadibna lacag gelisid laakiin waxaan rabaa maanta in halkan idinka xasuusiyo oo mar kale idin leeyahay haah waad awoodaan inaad lacag ka samaysaan youtube-ka idinkoo guryihiina jooga laakiin maxaa keenay sababta ay tahay soomaalidu inay ku jirto wadamada ugu yar ee lacag ka samayn kara youtube-ka marka loo eego dadka kale ee adduunka midda kale ma rumaysan kartaa inay youtube-ka jiraan dad bishii ka sameeya 5,000 oo dollar ilaa iyo 4,000 oo dollar dad badan waxaa laga yaabaa in maskaxdooda aysan taasi geli karin 5,000 ama 4,000 oo dollar oo lacagta aad taqaanay dollarka ah in youtube-ka laga samayn karo bishii ama markaan idhaahdo ama bil iyo bar ama 2 bil heerkaas weli marka maanan gaarin laakiin haddii qof 3,000 oo dollar ama 4,000 oo dollar bishii ka sameeya uu jiro maxaa kuu diida adiga inaad marka hore 100 dollar ka samaysid 200 aad ku xijisid 300 aad kusii xijisid oo kor isu socotid haddaba halkan waxaan kaaga faa'iideynayaa qaabka taas aad ku samayn karto ila soco marka ugu horeysa waxyaabaha lagaa rabo waxay tahay horta number 1 sida halkan ugu jeediinba inaad samaysato ciwaan user inaad samaysato waa inaad youtube-ka ku leedahay qaanad si lamida sida facebooka oo soomaalidu inta badan ay taqaano aad ugu leedahay ciwaan ciwaankaasi marka ay noqoto samayntiisa youtube-ka waxay partner yihiin oo markaas ay isku lamaan yihiin lamaan wada shaqayn leeyihiin waxa loo yaqaano google-ka google-kuna waxay leeyihiin waxa loo yaqaano gmail dabcan gmail-ka marka hore waa inaad ka samaysataa ciwaan si aad u hesho in youtube-ka ciwaankiisa aad hesho gmail samayso kadib markii gmail aad samaysatid ciwaan gmaila kadib waxaad tagtaa youtube-ka tag kadibna tusaale yar haddii aan halkan aan kaa tuso markii aad youtube-ka oo kale aad markaad aad ku dhufato ood maaragtay tiraahid youtube-ka kale marka aad gashid oo kale google-ka oo kale google-ka markaad gashid haddaadan samayn karin youtube-ka wuxuu saaran yahay qaybta kor oo kale halkaas oo kale oo isaga ka muuqda marka youtube-ka markaad klik ku siiso wuxuu kuu soo saarayaa meel la gelinayo password iyo user iniraahde user iyo password meel la gelinayo kadibna geli kadibna waxaad tiraahdaa gal dheh kadib markaad geshid sidaasaad youtube-kii ugu jirtaa marka waxa uu koowaad oo aad samaynaysaa tallaabada koowaad oo samaynaysaa waxay tahay horta hore inaad gmail samaysatid kadibna aad youtube-ka tagtid meesha gmail-ka ciwaankiisa la gelinayo oo kale aad ciwaanka gelisid meesha passwordkana passwordka aad gelisid intaas markaad samaysato waxaad leedahay qaanad youtube-ka ah youtube-kii waxaad ka samaysata qaanad waa free lacag lagaama rabo tallaabada labaad ee xigta eed rabtid la rabo inaad samayso waxay tahay inaad markaas kadibna aad filimaan aad leedahay aad geliso kadib geli filimaan aad leedahay halkan waa meesha lacagtu ka bilaabanaysa marka dareenkaaga siib youtube-ka markaad samayso muuqaal baad gelinaysaa muuqaalka aad gelinaysaa waa inaad koobigiisa adigu leedahay tusaale ahaan xasan aadan samatar heeskiisoo kale haddii inta aad soo hesho aad youtube-ka sood geliso wax lacaga kama samayn kartid sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay xuquuqda lahaanshaha ee filimkaas adigu ma lihid
cameraman baa duubtay oo fanaanka ka duubay, fanaanka iskale xuquuqdiisa, cameramankiyaa kaaga leh, kaaga dhow, heeskana qof baa ereyadiisa iskale. marka iska ilaali inaad youtube-kaaga gelisid. waa haddii aad rabto inaad lacag ka samayso. haddii aad rabto in dadku iska daadaawadaan oo maaragtay youtube-kaaga caadiga iska noqdo, haa waad gelin kartaa, heesaha waad gelin kartaa haddiiba lagu ogol yahay oo maaragtay aan lagaaga daba imaan doonin. inkastoo ay dhici karto in markayd hees meesha gelisid fanaankii uu ku dacweyn karo, kadibna youtube-ka lagu dacweyn karo, kadibna halis uu gali karo ciwaankaagu. marka filimka aad gelinaysaa youtube-ka waa inaad adigu leedahay. marka waxaan ku siinayaa qish yar. filin markaan ku leeyahay maahan inaad filin sida filmaanta hindiga iyo maraykanka o kale aad samaynayso maahan. kilib yar oo aad ka duubto jikadaada kushiinka, tusaale ahaan dalac bilaash adoo samaysanaya oo kale, caano iyo shaax oo kale adoo samaynaya, suugo yaroo macaan adoo samaysanaya oo kale, ukun adoo samaynaya, adoo canjeero dubaya, adoo rooti samaynaya, adoo muufo dubaya oo kale. waxyaabahaasoo kale ayaad kaamiradaad ku duubaysaa, kadibna waxaad gelinaysaa youtube-ka. xuquuqdeeda adaa iskale. kadib marka qof kastaa oo filimkaas galaa oo booqda, marka filimka koowaad, tallaabada koowaad aan maraynaa, yaana taas aan ka hor dhicin, waan gaari doonaa. markaad filimkii gelisid youtube-ka, waa inaad markaas u samaysaa haddana ciwaan soo jiidinaya daawadayaasha. filimka waad gelisay, tusaale ahaan marka filimka markaad gelisid oo kale, ciwaanka oo kale maxaan ka dhigi karnaa? ciwaanka filimka aa u samaynaysid oo kale waxaan dhigi karnaa sidee dalac bilaash loo sameeyaa, calaama su-aal. marka meel waxaa jirta tag ah oo markaa filimka gelinaysid uu kuu soo bixi doono, tag a ku qoran. taaggaas waxaa loogu talagalay inaad gelisid ciwaanaha dadka soo jiidan karoo kale. dalac bilaash oo kale markaad gelisid, kasoo qaad marka anoo kalaa imid googlekan imid ama youtube-ka kalaan imid, waxaan ku qoray dalac bilaash, filimkaaga iisoo baxaya. marka taasaa lagu soo dabtaa. waxa waaye waa dabinkii dadka aad kusoo daban lahayd oo filimkaaga lagu daawan lahaa. marka iska ilaali inaad magac soo jiidashale aad u samayso. midda kale iska ilaali in magacyo youtube-ka ku jiroo kale aad samayso. tusaale ahaan oo kale haddaan dhaho hees cusub, waxaa ku jira youtube-ka 1 milyan oo magacaas ah, oo qof kastaaba isaga qoray hees cusub 70 milyan oo soo qabanaa oo hees cusuba. marka taasoo kale marka waxaa ka fiican inaad haddii xataa heeska adiga aad leedahay kale ood qaadidoo kale ama adiga aad leedahay, inaad ciwaan uga dhigin hees cusub, ee aad u raadiso ciwaan kale ood is leedahay wuu ku yaryahay youtube-ka. marka taasoo kale inaad maaragtay samaysid. sidoo kale waxyaabuhu dadku ay raadiyaan, gabdhuhu kale maxay raadiyaan? haddaad gabar tahay, gabdhuhu waxay raadiyaan sida maaragtay timaha loo hagaajisto, sida maaragtay laisku qurxiyo, waxyaabahaasoo kale gabdhuhu jecelyihin. marka inaad ciwaanka filimkaaga ku basegaraysid qaabkaasoo kale, kadibna aad ciwaan uga dhigto. dhalinyaradu maxay jecel yihiin oo kale? waxyaabaha waxay jecel yihiin marka sportigoo kale, waxyaabaha ay dhalinyaradu jecel yihin inaad samaysid ood maaragta soo gelisid oo kale. marka intaan waan samaynay. kow, ciwaanka waan samaynay, gmailka waan samaynay, aan ka bilaawno lamber 1. lamber 2, ciwaanaan ka samaysanay youtube-kii, kadib filin aniga aan leenahaan gelinay, kadibna soo jiidasho magaca lahaan u samaynay. intaas markaa gelisid oo samaysatid, waxaa dhici doonta in filimkaagu uu helo booqdayaal. youtube-ku wuxuu leeyahay viewers, meel marka wuxuu leeyahay oo dadka youtube-ka booqdaa, youtube kasta qofkii booqda oo filim kasta fiiriya wuxuu leeyahay meel sheegaysa inta qof ee filimkaaga fiirsatay. tusaale ahaan hadda youtube-kan joogaa, marka waxaan tegayaa youtube-kan hooyiga oo kale, halkaanaan ku dhufanaynaa, kadibna waxaan tegaynaa video manager. kadib markaan video manager tagno, filmaanta noogu jiraa meeshaan noogu soo baxaya. meesha marka filmaanta noogu jira marka noogu soo baxaan, filim kastaa wuxuu helayaa inta qof oo booqatay. tusaale ahaan waraysigan shukri sindiko fanaanada lala yeesho kale, markii halkan aad fiiriso 1330 qof ayaa daawatay oo waraysiga gabadhan dhegeysatay.
tusaale ahaan heeskan shigshig fanaan shigshig 706 qof ayaa markaas dhegaysatay. barnaamijkan guurso ee websiteka wariyaha.com aanan kaga hadlaynay 1510 qof ayaa daawatay. marka filmaanta ku jiro dhan saasay marka mid walba wuxuu leeyahay meel ay ku qoran tahay viewers oo sheegaya inta qof oo filimkaaga daawatay. markaad filimka marka meeshaan oo kale hadday tan tahay qaybtii dadka daawanayo kale, meeshaan suul kor u jeeda iyo suul hoos u jeeda ayaa u jeedaa. suul kor u jeeda waa okay, waa fiican yahay waaye. suul hoos u jeedana waxa waaye waa filimkaas waa down, waa eber. qofku marka ra'yigiisu ka bixin karaa, ama wuxuu dhihi karaa kor suul u jeeda uu samayn karaa oo uu ka wada waa good, aaday u fiican tahay, ama suul hoos u jeeda uu ka wada down oo ah waxba kama jiraan. taas waxaa samayn kara dadka daawanaya ayaa awooddaas iskale. meeshaasoo kale waxaa ku qoran comments, wuxuu kuu sheegayaa inta qofoo comment ka bixisay filimkaaga. markii filimkii aad gelisid oo tusaale ahaan oo kale intaasoo boqoda a heshid, muuqaalkan guurso oo kale 1510 qof markay daawatay, youtubeka marka maxay samaynayaan? youtubeka iyo googleka sidaan ku sheegaba waa partner, waa dad markaas oo wada shaqeeya. markaas kadib waxay kuusoo dirayaan, youtubeka wuxuu kuusoo dirayaa qoraalkaas wuxuu noqonayaa sidaan. qoraalkan ayay hadda usoo direen youtubekan hoyga. qoraalkan meeshan waxaa ku qoran make money on your videos, oo macnaheedu tahay filimadaada lacag ka samee. haye marka hadda ma xaqiijisanaysaa inaysan ciyaar ahayn in adoo fadhiya oo gurigaaga jooga oo meelna u dhaqaaqin aad lacag iska daldalan karto? haddaad maqli jirtay lacag waa la dashaa ama waddooyinka iska tataalaa, waatanaa waxaa kaa xigtaa keliya combyuter adoo haysta, internet high speed ah adoo haysta, iyo adoo creative ah ama qof maaragtay wax abuuri kara ah ayay kaaga xirantaha. kadib marka halkan waxaa ku qoran sidaa ujeedaan lacag ka samee filimaantaada. haddaba si aa u samayso ciwaan, kadibna markaas raac tilaabaha qaababka soo socda. hadda markay iisoo direen qoraalkan muddo adiga bil ka hore ayay ahayd. muddo bil ka hor ma aanan bilaabin, ma aanan samaynin weli, anigoo ujeedadeydu ay ahayd inaan barnaamijkan hadda aan idiin soo gudbinayo aan la sugayey oo rabay inaan kaga faa'iideeyo si aad indhihiina ugu aragtaan qaabka aad hadhow aad ku eegi kartaan ama aad ku ogaan kartaan in youtubeka uu warqad kuu soo diray ama lagu ogolaaday in filimaantaada aad lacag samayn karto. qof kastaa tan ma mudan karo. waxaa mudan kara qofka filimaanta uu gelinayo isagu iskale xuquuqdooda oo aan looga daba imaan doonin. haddii marka aad hees farxiya fiska oo kale soo gelaysid ama fanaan kale aad soo gelaysid, taas xuquuqdeeda adigu ma lihid. haddii aad soo gelaysid xaflad soomaali isugu timid oo meel ka dhacaysay, xuquuqdeeda ma lihid. waxa aad gelin kartaa waa wax adigu kaamiradaada aad ku duubtay, xuquuqdeedana adigu aad leedahay. markaad intaas samayso, mar kasta oo aad filim gelinayso youtubekaaga, meeshaas kore eeg, waxaad arki doontaa boxka halkan saaran oo kale. boxkaasaad u jeedaysaa oo ay ku qoran tahay lacag ka samee filimaantaada. markaad boxkaas aragtid, qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa qaabka labaad ee aad u raaci doonto barnaamijkan. markii intaa aan soo sheegnay aad samayso, intaasoo shuruuda aad soo samayso, kadib marka intaas aad samaysay oo booqadayaal badanna ay heshay, kadibna aad filimaantaada ku aragtay, macnaha aad heshay qoraalkaasna aad ku aragtay youtubekaaga, waxa aad samayn doonto, qaabka aad googleka ugu xiri doonto, la soco qaybta dambe ee barnaamijka aynu ku eegeyno qaabka googleka lacag looga sameeyo adigoo adeegsanaya youtubekaaga gurigaagana jooga. hana hilmaamin inaad samayn karto, haddii qof fikir abuur leh ama hal abuur leh aad tahay, inaad samayn karto, kaamiradna haysta, inaad samayn karto lacag bishii ka badan $1,000 inaad samayn karto. waa haddii aad markaas raacdo qaabka loogu talagalay in youtubeka maaragtay lagu ilaaliyo wax loo yaqaano copyrightka, inkastoo soomaalidu aysan aqoon badan u lahayn copyrightka. haddaba la soco qeybaha dambe ee barnaamijka. haddii aad rabto inaad wax badan kasii ogaatid, dabcan waad ila soo xiriiri kartaa adigoo igala soo xiriiraya emailka ah wariyaha.com@
gmail.com kadibna waxyaabaha aad rabto inaad wax iga weydiiso soo raacinaya. Midda kale, ha iloobin in inta aad gasho hoyga een, aan- een, aad markaasi labadan midka hadda aad ka daawanayso filimkan oo ah youtube-ka hadda aad ka daawanayso, meesha ay ku qoran tahay subscription, inaad maaragta klik ku siiso, ha iloobin. Mid marka kalena hoygana inta geshid aad isna qaybtaas kore ay ku qoran tahay subscribe ay ku qoran tahayna inaad subscribe dhahdid. Taasna ha iloobin. Sidaa iyo nabadgelyo, waad mahadsantihiin.